kaalintaadii kombiyuutarka oo kusoo bandhigaya casharadani autorailes casharkii afaraad ayaan kasoo gudubnaa filaya kii shanaad kii afraad kii saddexaad kasoo gudubnay kii afaraad waay marka buugani sahal barashada autorailes waa tiiriga waxaan ka hadlayna ma ahin waxaa la leeyahay waa la baranayaa waaya military colony waa koox ciidamo oo wata gawaarida wata socda sidaasna waxa iska ilaalisa inaad kala dhex gasho ama aad kala goyso marka waa muhiim waxaa lagu magacaabaa waa military colony waa straight hawa ciidamo shaqo howlgal loo diray oo shaqo u socda inaad kala goyso lama rabo sida hadda sawirkan ku socda qofka sebrabaad ka socda ayaa ka horeeya macnaha ma kala goyna waayahay baabuurka u horeeya laba calan oo buluug wataa kan ku xigo calanka buluug kan kusii xigo buluug kan u dambeeya calan cagaaran taas maskaxda ku hay nalalka midigta waa buluug kulli waa buluug nalalka midigta ilaa kan u dambeeya calanka cagaaran wata maahin isaga nalalkiisa cagaaran nalalka bidixda kulli waa cadaan waxaa hadda inta kaaga muuqda military colony-ga isaga hadda wuxuu yahay correspond haddii tahay marka meeshan midigta trainka waxaa ah Trump first ahaa isaga marka military colony-gii Trumpkii marka isaga ayaa kow ah military colony-ga marka hadduu bilaaban lahay Trumpka inuu kala dhex gala muusan ahaanayn laakiin hadduusan bilaaban Trumpka la siinayo kadibna military colony-ga saasay ku soconaysa xusuusnaa marka waxaa lagu dhahay foranga vekhalatites forang military colony-ga isaga ayaa markastaba kaalinta koowaad iska leh oo waxaad ka hormarin karto ma laha sida halka kaaga muuqataba foranga vekwa halkan calaamadan ku taala si fiican haddaa u fiiriso calaamada aan soo qaaday oo kaadi waaya inta waxaa ku qoran foranga vek maadaama inta ku qoran yahay diese auto ayaa foranga ah kan ayaa inta maraya intuu ka baxaya waa kala dhex doorisnaada oo ku samayn kartaa la ogolyahay baabuurka waad say mar walba aan ka hadalnaba calanka waa bilaawo buluug ah kan ku xigo waa buluug kan u dambeeyana cala cagaaran ayuu wataa okay marka doorisnaada uu ku samayn karaa baabuurka koowaad baabuurka labaad baabuurka saddexaad bilaawo calan bilaawo qurune waa la fahmay soomaan cagaar buluug waa lagu dhahay buluug waa dhamaatay okay intaas haddaa fahantay marka military colony waxaan u gudbaynaa marka wax lagu magacaabo linebus waa jid u gooniyaha inay basaska maraan si ay saxmadda jidka uga yareeyaan waxaana loo ogol yahay keliya linebuska inuu maro taksiyada inay maraan inta waxaa loo ogol yahay inay maraan taksiyada linebuskana waa jidkan ayaa lagu magacaabaa baabuurna ma mari karo baabuurta kale halkaasay marayaan inta ma soo geli karo saana ma soo geli karo waayo feedstock waa waddo loogu talagalay baaskiilka inay maraan ama bashkuleetiga ya marka mootada haddaa inta marayso jidkan inaa inta soo marta maahin baaskiilka halkaasaa loogu talagalay calaamadaha waxay tilmaamayaan baaskiil sii soo soco haddii jidka uu forsortira sameynayo uu saan ugu go-an yahay markaad midigta u leexanayso waa dhexgeli kartaa haddaad midig u leexanayso laakiin sidaasna ugu socoto lama ogola jidkan isaga waxaa loogu magacaaba suggested stroke dabcan waa jidka noocan oo go-an labada dhinac baaskiilaha ka marayo baabuurkana dhexdaas ku soconayo highland waa ilkaha highland waa isgoys waxayna cadaynaysaa in jidkan laga leeyahay inaad baabuurta kale jidka u ogolaato highland waa ilkaha libaxbadeedka waa calaamad cadcad ee jidka ku yaala loona yaqaano farleynin foranga calaamada siriista ayaa loo yaqaanaa highland calaamadiisa boor ahaan waatana jidkan halkaas ku yaala baabuurka halkan yimaado waa inuu istaago jidka waa lagaa leeyahay baaskiilka kaa leh waxa kastoo meesha ku yaala dhan isgoos waa lagaa leeyahay jidka baabuurka inta imaado waa inuu istaago markay baabuurtaas maraan waayo boorkan halkaasa lagu dhajiyay boorkaas wuxuu quseeyaa baabuurkan marka fluchthafen and fluchtstro waa jid gaar ah oo loogu talagalay inaad isticmaasho marka gaariga kaa xumaado waad istaagi kartaa waana lagu ogol yahay waa halkaas waa fluchtstrok waa halkaas fluchtstrok waa halkan baabuurka waa lagu ogol yahay meel kastood marayso waa infiqstrok waa markaad rabto inaad gasho wada jidka baabuurta ay ku socdaan xawaaro dheer sida autovek oo boqol lagu soconayo autosnelvek dhulkana waxaa ku yaala astaan afar gees ah dhulka waxaa ku yaala waa kaas astaanta afar geeska
oo caddaan ah calaamadahaas waa info stroke. baabuurkan markuu saan usoo galayo waxa waaye kan xawliga inuu yareeyo, hadduusan yareyn isaga inuu qaaska dhimaa laga rabaa. kadib markuu baabuurkan dhaafo kabacdi soo galo ama aad xood u socoto oo halkaas kasoo gasho. nasiib daro laakiin jidka uu dhammaanayo marka baabuurkan inuu xawliga yareeyo waayo siduu kaas u dhaafo kabacdi u galo. kan wadadii uu ka dhammaaday isagana waa saas oo kale, halkaas inuu galo waa info stroke sida kaaga muuqda sawirka. waayo outfield stroke waa marka aad rabto inaad ka baxdo wadada ama jidka baabuurta ku socdaan xawaaro dheeray sida autoveq snelveq. dhulkana waxaa ku yaala astaan afar gees ah oo kaas laga hadlayo. meesha looga soo baxay waa sidaas. outridna waa la dhahaa, halkan waa meesha aad ka baxayso boorkaas halkaas ku yaala sida kugu muuqda. marka sidaas daraaddeeda kan hadda meeshuu ka baxayo waa kana meeshaas waay. marka wadadana meeshaasi ku taallaa, kaasaa lagu magacaabaa oid stroke ama end stroke ama outfield stroke, waxa dhahdaba isaga ayaa loo yaqaan. waa suggest stroke waa wadooyinka saan uga go-an oo loogu talagalay baaskiilahana maraan oo baabuurtana u maro. tilmaam jidka baaskiilka kula wadaagaya, marka waa inaad feejignaato haddii calaamadaha lagu sawiro iyo haddii kale, sababtoo waxaa suuragal ah in baaskiilka meeshaas maraya inaa gaarto lama ogola ugu gasho. hadda adee inta soo gasha oo baaskiil jug ah ku siisa halkaas adaa dambiila. marka waa inaad feejignaato ayaa loogu talagalay. intaasna waa intii aan kusoo qaadanay casharkeenii afraad. markii la soco casharkeenii shanaad haddii ilaahay yiraahdo intaan hawada ku kulmayno oo aan ku qaadan doono waxa loo yaqaano vechen hardweg ama rayba waxa loo yaqaanoba. waxaan idin leeyahay waa idinkaga tegayaa amaano allah.